da'yarka kooxda Chelsea ee Steve Willian ayaa goor dambe goolka guusha ka dhaliyay xalay naadiga Liverpool, taasoo keentay in Reds ay la kulanto guuldaradeedii labaad oo xiriir ah horyaalka Premier League iyo mideedii saddexaad oo xiriir ah tartamada oo dhan. Xidiga xulka qaranka Brazil ee Steve ayaa xalay sidaasi ku dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda Chelsea, waxaana laga yaabaa inuusan mar kale dhalin gool midkan ka weyn. Inuu ahaa goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda, inuu ahaa gool soo daahay oo xilli dambe yimid, inuu ahaa gool uu guusha ku siiyay kooxdiisa Chelsea, inuu ahaa goolkiisii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League, iyo inuu ahaa gool uu ka dhaliyay koox weyn oo ah tan difaacanaysa horyaalka Premier League kal ciyaareedkan ee Liverpool, ayaa ka dhigaysa in laga yaabo inuusan mar kale dhalin gool midkan ka weyn ama la mid ah. Steve oo 18 sano jir ah ayaa goolkaasi ku noqday xidigii ugu da'da yaraa abid ee u dhaliyay gool naadiga Chelsea horyaalka Premier League, waxaana rikoorkaas horay u haystay oo uu kala wareegay Callum Hudson-Odoi. Haddaba waa kuma miisiga yar ee xalay maraqa ka cabay Liverpool? Magaciisa oo buuxa waa Steve Willian Almeida de Oliveira Gonçalves. waxa uu dunida ku soo biiray 24 Abriil sanadkii 2007. waxa uu ku dhashay halka la yiraahdo Franca oo dhacda magaalada São Paulo ee dalka Brazil. isagoo 10 sano jir ah ayaa laga diiwaan geliyay xerada tababarka dhalinyarada ee Cruzeiro oo fadhigeedu yahay magaalada Belo Horizonte, halkaasoo Steve uu caan ka noqday. rikoorkiisa uu ku galay taariikhda Brazil isagoo da'diisu tahay 10 sano jir. Steve waxa uu galay taariikhda Brazil isagoo noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa abid ee heshiis la gala shirkadda ciyaaraha caanka ah ee Nike, isagoo jabiyay rikooradii ay hore u dhigeen xidigaha Brazilianka ah ee Rodrigo oo heshiiskaasi saxiixay isagoo 11 sano jir ah, iyo Neymar oo qalinka ku duugay heshiiska Nike isagoo 13 sano jir ah. Steve waxaa loogu yeeraa miisiga yar. magaca uu caanka ku yahay waa Messinho ama miisiga yar. ma aha neynaas iska caadi ah, ee waxaa loogu bixiyay magacaasi inuu isku darsaday hal abuurka Messi iyo xirfadaha Neymar, iyadoo uu leeyahay go'aan qaadasho degdeg ah, xawaare sare, iyo inuu si lama filaan ah jihada u bedelo markiiba, taasoo inta badan suuro gelisa inuu meel yar oo ciriiri ah kaga duso dhowr daafac. muxuu u jecel yahay xirashada lambarka 41aad? Steve aad ayuu u jecel yahay inuu xirto lambarka 41aad, wuxuuna lambarkan xirnaa intii uu joogay kooxda Palmeiras. markii uu yimid Chelsea waa uu la wareegay, welina dhabarka ayuu ugu dhagan yahay. ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee xirta lambarka 41aad ee kooxda The Blues waxa uu ahaa xidiga xulka qaranka Nigeria ee Ola Aina, kaasoo kooxda ka tagay sanadkii 2019. maadaama lambarkaasi uu banaanaa, waxay fursad u noqotay oo lambarkii uu jeclaa meel cidla ah ka helay Steve. waxa uu aaminsan yahay Steve in lambarka 41aad uu yahay lambar nasiibkiisa ah oo xusuusiya had iyo jeer inuu iska dhigo mid edeb leh oo degan. wicitaankiisii ugu horeeyay ee xulka qaranka, Steve waxaa looga yeeray xulka qaranka Brazil isagoo 17 sano jir ah, taasoo ka dhigtay ciyaaryahankii lixaad ee ugu da'da yaraa abid ee u safta xulka qaranka Seleção, waxaana uu qaranka Brazil u dhaliyay ilaa iyo haatan hal gool oo qaranka ah iyo hal gool oo Chelsea ah. Steve weli waa da'yar yahay oo waa 18 sano jir, wax badan ayaana laga filayaa.